labaatanka waxaan wadnaa dhammaystirka waddadii nabadda ee isku xidhaysay gaalkacyo labadeeda dhinac puntland iyo galmudug waddadaas dherarkeedu wuxuu ahaa 1500 mitir ballaceeduna waxa weeye waa 6 mitir waxaa loogu talagalay inay ka qayb qaadato isdhexgalka iyo nabadda waxaa farxad weyn noo ah in goobtii shaqada ay nagu soo booqdeen wasiirada galmudug wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka warfaafinta gudoomiyaha degmada dhinaca galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyo xildhibaano golaha deegaanka iyo xildhibaano galmudug ah runtii farxad bay noo tahay wayna farxad gelinaysaa waddooyinkan waa 3 waddo weeye waddadan baa kow ka ah waddada suuqa dhex marta waddada 5 star ilaa iyo hotelkii cagar weyne isku xirta saddexdaas waddo oo mashruuc package oo isku xiran buu ahaa soolarradii baa ka mid oo aan dhammayna hadda magaaladu waa siraadan tahay way shaqaynaysaa waa la dayactiray waxaa ka mid ah nabadda inay wax ka geystaan waxaa ka mid ahaa saldhig hadda aan dhammaynay oo galbeedka magaalada ku yaalla xayaad iyo kabeergo runtii meeshaan waxaa ka muuqda waan u mahadcelinaynaa maayarka sida uu sheegay waxaa weeye haddii aan lagu sheeginna waa la sheegaa miyay ahayd haddaan lagu sheegana waa la sheelaa waa sheegay laakiin annaga u joognay waa naga hormaray marka waa ku mahadsan yahay shaqo fiican buu runtii qabtay deegaankaana waxaa muuqata muddadii uu joogay in shaqo fiican ay ka qabsoontay wax kastaba ha la sheego waddadan ay qiimaha ay ku fadhido bulshada ugu fadhido wax sahlan maahan waxaa weeye nabadday qayb ka tahay isku socodkay qayb ka tahay magaalada bilicdeeda iyo qiimaheeda ayay qayb weyn ka tahay marka runtii gaalkacyo waxaan leenahay way tallaabsatay tallaabo xooggan baa muuqata waxyaalihii yaraa oo amniga oo ka dhimanaana maalmahan si fiican baa loo hayaa iyo isku furnaanshaheeda labada dhinacba in kalsooni dadku isku qabaan waxaad maqasheen in ciidamadii wada howlgelayaan waxaad maqasheen in maamulladii ay wada shaqaynayaan waxaad maqasheen dowladihii maaragtay madaxdoodii iyo wasiiradii inay maaragtay wada shaqaynayaan awalna intaasi waa naga dhimanayd laakiin waa noo dhammaystirantay waxaan rajaynaynaa gaalkacyo wixii hadda ka dambeeya inaanay ka warramin colaadee inay ka warranto waddo la furayo warshad la furayo maaragtay bulsho isdhex gashay iskuulle iyo jaamacado maraakiis xarumo cilmi baaris isbitaallo waaweyn halkaas inay noqoto waxay ka warramayso waxaanan adduunkan ugu baaqaynaa iyo hay-adaha caawiya mashaariicdan oo kale waxaan leenahay magaalada gaalkacyo way u diyaarsan tahay kabaasitigii shirkadihii wax dhisi lahaana way joogaan oo runtii aanan anugu filayn laakiin guul weyn ay tahay in laamigii iyo shirkadihii iyo dadkii expertska injineeradii in la heli karo marka arrintaasi wax weyn weeye mashaariicdoo dhammi waxaan leenahay way u diyaarsan tahay mashruuc dambe la hor istaagi karo ama la hor istaagi doonana ma jiro waxaan rabaa inaan dadka reer gaalkacyood ugu baaqo inay gacan siiyaan maamulka degmada iyo maamulladoo dhan iyo ciidankaba